go'aanka laamaha ammaanku ay Muqdisho ku gaareen gacansiinta Al-Shabaabna lagu mamnuucay waxaa kaga horeeyay golaha wasiirada oo 13kii bishan Kismaayo ku go'aamiyay in xarakada Al-Shabaab aan taageero la siin karin. Hoggaanka laamaha ammaanka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga gudaha, taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska ayaa iyaga oo ishareer fadhiya soo saaray awaamiir ganacsatada Soomaaliyeed lagaga digayo dhaqaalasiinta Al-Shabaab. Taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa sheegay in dawladdu ay la socoto ganacsato dhaqaale siisa xarakada Al-Shabaab. Waxaan ka warqabnaa in dhaqaale aad u fara badan oo magacyo kala duwan loogu yeero ay ka soo galaan ururada argixisada sida shabaab qaybo kala duwan ee bulshada ah. Lacagaas waxaa loogu yeeraa taakulayn, waxaa loogu yeeraa sakawaad, waxaa loogu yeeraa ganaax, waxaa loogu yeeraa taakulaynta mujaahidiinta, waxyaabo fara badan ayaa loogu yeeraa. waxaana laga qaadaa cid kasta oo hanti ay ku tuhmayaan. waan ognahay in kooxaha argixisada si joogto ah ay u cagjugleen camburna ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed baadna ay ka qaataan. waxaan ka warqabnaa baadaas ka sokow ganacsato iyo maalqabeeno fara badan oo ilaa xad ku qanacsan fikirka Al-Shabaab inay jiraan oo ku dhiirigeliya ganacsato iyo dad kale oo Soomaaliyeed dhaqaale leh in ay si sahlan u taakulayaan. Taliye Sanbalolshe ayaa sidoo kale qaba in nidaamka shirkadaha lacagta fududeeya aysan hagaagsanayn iyadoo aan la xakameyn karin ayuu yiri dhaqaale uu sheegay in ganacsatada Al-Shabaab ay siiyaan. waxaan ka warqabnaa in nidaamkeen isgaarsiinta xawaaladaha iyo habka lacagaha loo kala wareejiyo inaysan noo nidaamsanayn. waxaad kaloo ka warqabtaan in ay jiri karaan annaguna aan ognahay inay jiraan ganacsiyo fara badan oo u muuqda meelo shabaabku ay ku maareeyaan dhaqaalahooda iyo sirdoonkoodaba. waxaad la socotaan inay ka faa'iideysanayaan argixisadu burburka baaxadda leh ee ummadda Soomaaliyeed ay soo gaartay oo dhan walba leh iyo dagaalada iyo colaadaha qabaa'ilka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada u dhaxeeyay iyo qabaa'il ilaa xitaa siyaasiyiinta khilaafka iyo isjiidka ka dhaxeeya. wasiirka ammaanka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in dawladdu sharciga ay la tiigsan doonto cid kasta oo ay ku cadaato taageerada xarakada Al-Shabaab gaar ahaan ganacsatada oo diiraddu hadda ay u saaran tahay laamaha ammaanka. dadka Soomaaliyeed ee joogo Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Muqdisho inay u tagaan say lacag u soo bixiyaan Torboro iyo Bariida iyo meelo kale ay ku nool ay degan yihiin nimanka Al-Shabaab waa mamnuuc cid lagu ogaado talaabo sharci ah laga qaada haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa kaba dambeys arrintan waa go'aan ay gaareen golaha wasiirada marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma aha Muqdisho oo kaliya meel kasta ay joogaan inayna gacan la sameeynin ay gacan saar la yeelanin aan rajaynaa. sidoo kale waxaan faraynaa dadka waan la soconaa la shaqeeyo ururada Al-Shabaab lacagta ay ka qaataan ummadda Soomaaliyeed ee ka boobaan ganacsiga loo galshaa waan daba taaganahay in talaabo sharci ah laga qaado qof ganacsatada Soomaaliyeed. waxaan u digaynaa ma wada ahaan laakiin qaar ka mid ah inay ururada Al-Shabaab lacagaha qaadaan ee ganacsi soo gulshaan taasna waa mamnuuc. si xal loo gaaro taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sanbalolshe ayaa sheegaya in shakhsigii Al-Shabaab u aada xukun ama dhaqaale siiya uusan ku soo laaban karin dhulka dawladdu ay joogto. macquul maahan qof Maka al-Mukarrama jidkeeda ku ganacsada oo Bakaara ku ganacsada oo suuq baad ku ganacsada oo Xamarweyne ku ganacsada in qof tooro jooga baad joogta uu ka qaado. dadka Soomaaliyeed laba wada u furan in ay ka guuraan goobaha nabdoon ee dawladda ay degan tahay la degaan shabaab inay la dagaalamaan kana hor yimaadaan ee uma furna in in la dulaysto uma furna in baad joogta laga qaato uma furna xoolihii dhididkooda iyo dhacaankooda ay ka keeneen dadka in lagu laayo ay yiraahdaan waa cabsanaynaa. dawladda waajibaad saaran waxay tahay ilaa xad intii ay ammaan sii karto ay difaaci karto oo ay ka hor istaagi karto qof Soomaaliyeed dhibaato in ay ugu timaado shabaab inay dadaalkaas samayso waajib waaye. ugu dambeyn Cabdixakiin Daahir Siciid taliyaha booliska Soomaaliya ayaa ganacsatada ka dalbaday in amarka laamaha ammaanka
la dhaqangeliyo iyada oo laga gudbayo sida uu qabo al-shabaab lacagta ganacsatadu ay siiyaan sida dowladdu ay sheegtay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.